in dowladda Jubbaland ay walaac ka muujinayso xaaladda amni maamul iyo bini'aadanimo oo ka jirta gobolka Gedo taas oo saldhig u ah faragelintii sharci darrada ahayd ee ay sameeyeen madaxweynihii hore iyo taliyihiisa nabad sugidda dowladda Jubbaland waxay rajaynaysaa in xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay arrintaani wax ka qabato maadaama ay tahay arrin bannaanka ka ah dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan hase yeeshee dowlad goboleedka Jubbaland ayadoo gudanayso waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay qaadaysaa tillaabooyin isxigxiga oo xal u noqonayo xaaladda gobolka taas oo ummadda gobolka gaarsiinayso amni maamul garsoor iyo adeeg bulsho oo dhammaystiran dowladda Jubbaland waxay ka codsanaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Gedo inay garab istaagaan nidaamka dowladnimada sharciga iyo kala dambeynta kana hortagaan fowdada iyo qaska ay wadaan shakhsiyaadka ku howlan danahooda gaarka ah sidoo kale waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay arrintan siiso mudnaanta ay leedahay waayo arrinta gobolkaani oo la xalliyo waxay furo u noqonaysaa la dagaalanka argagixisada iyo dhismaha qarannimo Soomaaliyeed arrimahaas oo ku xeeran maxaa yeelay gobolka waxaa ku xeeran arrimo fara badan oo dhinacyo badan ka imaanayo marka inay dowladda mudnaanta koowaad siiso xallinta arrimahaas ciidamada gobolka ka howlgalo dhammaan waa ciidamo ku dhisan xeer iyo nidaam oo dowladda Soomaaliya hoostaga ayagana waxaan kula talinaynaa inay ka dhaxbaxaan maamulka iyo siyaasadda iyo taageeridda shakhsiyaad aan danahooda gaarka ah u xusul duubay oo ilaaliyaan xeerka iyo sharciga dalka oo ay ku dhaarteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.